Sida ugu fudud ee loo kordhiyo xawaaraha moobilkaaga. سبحان الله وبحمده Sida سبحان ugu الله fudud العظيم ee loo kordhiyo xawaaraha moobilkaaga. Haddaba waa ila fiirso. Waxaa marka hore tegaysaa setting. Xawaaraha waxaan kordhinaynaa ee moobilka animationka ama dhaqaaqa uu sameynayo. About phone markaad dhagsiiso software information and then building number tap 3 saddex jeer dhagsii 1 2 3 loogaan ku weydiinayaa kadibna waa fure. Okay, your mood has been enabled and then back. Anaga xawaaraha speedka moobilkan kordhinaynaa back. Okay, xaggan waxaa soo galay software development. Building number ayaa saddex jeer dhagdhag siinay kadibna dhagdhag saddex jeer markaad dhagsiiso software development-ga banaanka ku imaanaya. Hadda setting-ka ku jirna software development noo door and then waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay window animation scale of transition animation aydan of animator duration aydan of saddexdan markaa 1 2 3 of gareyso. waxaad imaanaysaa background process limit. No background process limits are no background process and then back kasoo laabo kadibna waxaa imaanaysaa meesha ku qoran tahay application. waxaad isku dayaysaa programmada inta badan aad isticmaashid isku day inaad xogta ka tirto. tusaale ahaan hadda Chrome-ka oo kale in badan waan u badanahay waxaa ku jirto xog dhan data dhan waxaa ku jirto totalkeeda waatana totalka 363 MB ku jiro. ayadana xogta ka tiraysaa clear cache. Okay, back tusaale ahaan Facebook oo kale waxaa ku jiro 756 isku day marka clear data iska titir leano moobilkaaga culays uu ku keeni karaa. isku day marka applicationada markaad timaado weliba dhankan waxyaabaha ugu badan aad isticmaashid inaad xogta ka tirto. Gmail-ka oo kale kuwa badan waxaa jira wax ka buuxaan. Google-ha oo kale Google Play Service-ka marka moobilkaaga speedkiisa hadda basekan hadda ku jiro kale fiiri waa 1.4 waa 2 GB iyo 40 megabyte waaye. dabcan hadda asaga u baahan tahay inaad clear dhahdo memory-ga taabanaysaa qaybta storage-ka kadibna clear data dheh xogta ka tirtire. Okay, tusaale ahaan hadda markii Facebook-ga applicationadan isku day kuwa ugu isticmaalka badan inaad tagtid sida hadda Facebook oo kale. Facebook markaad dhagsiiso storage-ka taabo clear data dheh xogta ka nadiif. xogta markaa ka nadiifiso haddana mar labaad soo gal login soo samee. marka khayrta dhammaantiina waad mahadsantihiin.
waxaan idinka codsanayaa youtube-ka social harm inaad subscribe saartaan. social harm surgeon markaa dhahdo subscribe saar, gambaleelkana furo. aad iyo aad waa mahadsantahay.